madaxweyne Farmaajo ayaa maanta dhabarjab weyn ka dugaashaday doorashadii gudoomiyaha aqalka sare oo si aqlabiyada wareega koobaad ugu guuleystay senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo 4 sano dagaal siyaasadeed kula jiray filla Soomaaliya kana hor yimid doonis walba oo Farmaajo sharciga ku baalmarayay waana barbilowga ififaalo muujinaya inuu dabayshaday xukunka madaxweyne Farmaajo dharbaaxada siyaasadeed ee teendhada afisyooni kaga timi madaxweyne Farmaajo waxay guul weyn u tahay ra'iisul wasaare Roble iyo mucaaradka oo xusul duub ugu jira sidii ay uga hortagi lahaayeen dib u doorashada Farmaajo si gaara ra'iisul wasaare Roble ayaa libin hantiyay mar haddii Cabdi Xaashi oo ah waayo arag midnimada Soomaaliya u taagan tiir dhexaadna u noqday madax banaanida golaha aqalka sare iskana diiday muddo kordhin iyo mooshin xilka tuuris uu mar kale ku guuleystay gudoomiyaha aqalka sare madaxweyne Farmaajo oo xoog iyo xoolo badan ku bixiyay sidii senator Saalax Axmed Jaamac uu ugu guuleysan lahaa gudoomiyaha aqalka sare ayaa senataradu dadaalkiisa ka dhigeen hal bacaad lagu lisay kolkii ay sanduuqa Cabdi Xaashi Cabdullaahi ugu rideen 28 cod oo kaga filnaaday inuu mar kale noqdo gudoomiyaha aqalka sare senator Cusmaan Abukar Dube wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya ayaa helay codad ka hooseeya intii miisaankiisa la moodayay balse inuu yahay siyaasi madax bannaan oo ka xarga furtay mucaarad iyo muxaafidba ayaa la soo warinayaa inay keentay inuu helo 2 cod oo kaliya dadka siyaasadda hilaadiya ayaa u dayrinaya madaxweyne Farmaajo oo ku jira loolanka dib u doorashadiisa tiyo ay hareeyeen caqabado dhaawacaya mustaqbalkiisa siyaasiga ah kooxda madaxweyne Farmaajo oo doonayay inay hor istaagaan dhaarinta xildhibaanadii lagu soo doortay Ceelwaaq ayaa la sheegay inay weerareen gudoomiyaha ku meel gaarka ee golaha shacabka Cabdisalaan Dhabancad ayaa afkiisa ka qirtay inuu ka badbaaday isku daydil waana tallaabo xadgudub ku ah xasaanada xildhibaanka iyo shuruucda dalka u yaala ra'iisul wasaare Roble oo ku sugan magaalada Geneva ayaa isagoo la hadlayay jaaliyada Soomaaliyeed ee Switzerland wuxuu sheegay in dalku uu ku jiro xaalad siyaasadeed oo aan sahlanayn wuxuuna madaxweyne Farmaajo si durxula ugu eedeeyay inuu doorashada u isticmaalayo hanti la soo dhacay taasoo lagu doonayo in lagu soo saaro gudoon baarlamaan oo sharciga ku tunta ciidamo booliis iyo nabad sugid isugu jira ayaa xoog ku galay Villa Hargeysa oo ay ka socotay kaarbixinta xildhibaanadii lagu soo doortay Ceelwaaq tiyo banaanka loo saaray shaqaalihii baarlamaanka ee qaabilsanaa daabicista kaarka xildhibaannimo gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada gudoonka golaha shacabka xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in taliyaha ciidamada booliiska iyo askar uu watay ay xoog ku galeen Villa Hargeysa ayna ka saareen shaqaalihii baarlamaanka kooxda madaxweyne Farmaajo ayaa lagu eedeynayaa inay xoog u adeegsanayaan sidii ay danahooda uga fushan lahaayeen golaha shacabka oo ku shaqeeya Villa Hargeysa oo ku dhex taal madaxtooyada Soomaaliya waxaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed la socodsiinaya in hay'adda dhinaca gargaarka ee lagu magacaabo Danyar Daryeel and Development Organization ee fadhigeedu yahay magaalada London ee UK ay bulshada Soomaaliyeed hal qeyr guud ahaan ugu baaqaysay inay ka qayb qaataan caawimaadda dadka baahida gaarka qaba ee Soomaaliyeed haddii ay tahay waqtiga caadiga iyo haddii ay tahay bisha Ramadaan intaba madaxda sare ee hay'adda Danyar Daryeel and Development Organization waxay qabtaa fikirka ah inaynu isu kaalmayno meel kasta aan joognaba si Allah awood leh uu noogu kaalmeeyo ee wixii faahfaahina shaashada ka arka oo kala qayb qaatay hay'adda guud ahaanba arrimaha u danaynta iyo daryeelka bulshada Soomaaliyeed ee baahiyaha gaarka qaba